إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله. برyahan dambe sanadadan u dambeeyey waxaynu maqlaynaa aragnaana dhiirashada ay ku soo dhiiradeen cadowga islaamku min alyahuudi waاlnasaara wاlwathaniyiin calaa maqaami الnabiyi اlkariim nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam, sida ay u durayaan ay u dacaayadeynayaan, siday u caayayaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam, iyagoo arrinta noocaasi ah ku bahoobay oo isla ogol. hadday noqoto warbaahintooda, hadday tahay dowladahooda, hadday tahay in fara badan oo ka mida shucuubtooda iyo bulshooyinkooda. arrinta noocaasi ah ma habboono qofka muslimka ah si fudud oon u fiirsasho lahayn inay ku dhaafto. waxaa la gudboon oo waajib ku ah qof kasta oo muslimi dhacdooyinka noocaasi ee waaweyn, xadgudubka iyo gardarradaasi foosha xun, inuu u fiirsado duruus iyo casharo noloshiisa ay kaga tagto biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. dhowr qodob oo arrintaasi ku saabsan iyo dhowr cashar iyo dhowr darsi ay tahay muslimiintu inay ka bartaan ayaynu isxusuusin doonaa. muxamedun sala allahu calayhi wasalam zakaahu rabbuh wa athnaa calayhi ويكفيه فخرا وعظمة أن الله اختاره نبيا ورسولا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي با أماني وأمانتي سكوع العليي. وحانا نبي محمد وقفل أنفان يوناق يسرين إنه إلهي سبحانه وتعالى كدكتي نبيك إيا الرسول كي أدن بي الرسول شيسا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والرسول إلهي نبينا إلهي سبحانه وتعالى أوكو ختمي. أي تزكية وأي مدح وثناء أعظم من ذلك يا عباد الله. أمان يكرو قاد استيباتاسي كوين أمان تكوين وامحي
inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala min fawqi 7 samaawaat ku sifeeyey nebi moxamed biqowlih wa inaka lacalaa khuluqin cadiim. ilaahay baa sheegay akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan oo dhan nebi moxamed inuu ku sifaysan yahay, xumaan oo dhanna inuu ka fogaa, hadday tahay mid muuq iyo hadday tahay mid maqal iyo hadday tahay mid maqaal iyo hadday tahay ficil iyo dhaqan. wa qaala subxaanah inaka lacalaa hudan mustaqiim. nebi moxamedow hanuun toosan iyo waddo saxa ayaad haysaa fii jamiici umuurik, caqiidadaada, cibaadadaada, camalkaaga, dhaqankaaga, akhlaaqdaada, mucaamaladaada. wa qaala subxaanah wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. nebi moxamedow waxaanu ku diray adigoo ahuun raxmad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu naxariistay caalamiinta oo dhan. waxaana raxmaddaa helaya kan rumeeye raaca nebi moxamed. ayuha almuslimuuna cibaad allah, ilaahay baa nebi moxamed uga dhigay dadka oo dhan miday ku daydaan wanaaggiisa awgii. fahuwa alqudwatu alxasana lijamiici albashar fii sifaatihi wa akhlaaqih. laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyawma alaakhir. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam acdamu rajulin fi taariikh, waa ninkii u weynaa, u sharaf badnaa, uguna qiimo badnaa, uguna dhaqan wanaagsanaa ee soo maray taariikhda. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam axsanu nnaasi khuluqa wa ashjacuhum, waa qofkii soo maray adduunyadan ee ugu akhlaaq wanaagsanaa, uguna geesisanaa. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam ajwadu nnaasi wa asracuhum ila alkhayr, waa kii dadka ugu deeqsisanaa, khayrkana ugu dheerayn oga. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam ashaddu nnaasi xayaa'a, waa kii dadka ugu xishood badnaa. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam kaana yaxlamu cala aljaahil wayasbiru cala aladaa, waxaa mid u dulqaata ka jaahilkee ku soo khaldama, dhibkana u sabra. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam maa su'ila shayun qad faqaala laa, deeqsinimadiisa awgeed ma dhicin in wax la weydiiyo uu yidhi ku siin maayo, ama waan kuu diiday iyo waan ku qadiyey. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam kaana yucطii caطaa'a man laa yakhsha alfaqr, wuxuu u bixin jiray xoolaha sida uu bixiyo ka aan faqri ka baqahayn. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam kaana akthara annaasi tawaaduca wa abcadahum can alkibr, wuxuu ahaa dadka ka ugu tawaaduc badan, isu dhuldhigis badan, xaqa iyo khalqigaba, kibirkana mid aad uga fog buu ahaa. walihaada kaana yusallimu cala asibyaan, wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam carruurta yaryar midaan iska weynaysiin ee salaama. wa yujaalisu alfuqaraa, wuxuu la fadhiisan jiray dadka danyarta ah. wa kaana yajlisu xaysu yantahi bihi almajlis, dad meel fadhiya hadduu u yimaado ma odhan jirin meesha ugu fiican ha lay banneeyo, cidina meel ugama kici jirin, cidna meel loogama kicin jirin, halka bannaan golahaas ayuu ka fadhiisan jiray. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam kaana yujiibu dacwata alxur waalcabdi waalamah waalmiskiin wa kaana yacuudu lmardaa ayan kaanuu, wuxuu rasuulku ajiibi jiray yeedhmada addoonka hadduu addoon u yeedho, iyo hadday addooni u yeedho, iyo hadduu mid xori u yeedho, iyo hadduu mid miskiini u yeedho. wuxuu ahaa mid booqda dadka oo dhan, xataa inahu kaana la yacuudu lkufaar, waxa u booqan jiray xataa kuwa kufaar tahay marka ay bukoodaan, isagoo uga faa'iidaysanaya booqashadaasi yeedhmo uu ugu yeedho diinta ilaahay. muxamedu calayhi asalaatu wasalaam
كان يكره أن يقوم له أحد وينهى عن الغلو في مدحه وحواد دبسن جري إنه قف أكع ستاغو والصحابة وكوا يري رسولك عليه الصلاة والسلام مركو نوي ما ديسو ما ننتاج جرين sababtuna waxa weeye waxaanu ogeyn arinta inaanu jeclayn oo dhibsanayo wuxuu diidi jiray amaantiisa xadgudub in lagu sameeyo وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه marka uu wax dhibsado waxa laga dareemi jiray wajigiisa محمد عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب ولا ينتقم لنفسه نفسه لما وينين درادد ما عرون جيرين ومنا أرجون جيرين نفتيسه إلا إذا انتهكت محارم الله فينتقم لله إلهي مركم يالك قدعو أيو كعرون جيرو الله وأرجون جيرين محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق ما هي المدي لهي ودليا أفحمو يمدسك كان كيراتونا مدتك عايون عدل ما هين سوق يدا متكبوقنا ما هين وكان لا يجزي بالسيئات السيئة حمان مركا لغو سمايو حمان كقامت جواب الشرين بل هل كدقي سوحوها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم محمد عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح من عفس بدن وعند كخل دمت ودلقات وكتشيستبوها ما ضرب بيده عبدا ولا أمة ولا امرأة ولا واحدا من البشر إلا أن يكون ذلك في سبيل الله ولقي قعنتي سكما قراعين الدون يا دون تونا ولقي قبر كميدة دمر كيس مدلين بل رسولك عليه الصلاة والسلام قفنا قعنتي سوحكم يالين قف دقال جهاد اسك قهري مادان موياني محمد عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا يضجع على الحصير ويرضى باليسير وسادته من أدم حشوها من ليف وحوها مدى الدنيا دحديد الزاهدي قلبي قاد الدنيا دواني كقلين وحو كتيب سنشيري عودة لنعا كقصورانتا وحوها الدنيا رالي كقنقون شيري انتي ضير بركي مديس وحا يهيد هارك وحا لغو عبايا ويهي ليف كحقة كان يمر عليه الشهر وليس له طعام إلا التمر والماء بالدنبا ودمان شرتي وراشين كلان وددمين تمر يبي موياني هبين دنبا سو مري شري ويسقو بقمران وصيحدي كان رحيما بأمته وحواني محمد عليه الصلاة والسلام مذ مدي سادقنا حريص بدن بالمؤمنين رؤوف رحيم أعطاه الله دعوة مستجابة فادخرها لأمته يوم القيامة شفاعة وحيابات تصير يوم الدين سدوقنا حريصنا يوحاكم ذا إلهي با سبحانه وتعالى سيي بريا لقا أقبلاي الله ضمان قاضي مركو كد عيستين لقا أقبلاي وقم الدعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفتيس يدو مركيس يا أهل كيس يا قرابديس وقرى بل رسولك كيد بودكت يوم القيامة وقشف عقاد أمديسة كان عليه الصلاة والسلام بعيدا عن نشوة الملوك وكبرهم وغطرستهم إساقوا أمدا سودان هقامناي وحامداد قفق دغن كاللغو يقان بقرد إيا مدحد بدن كودة وإسلوين إيا كبر يسس الرئيسين إلهي با سبحانه وتعالى أفري مكة فدخلها خاشعا متواضعا متضرعا وحو مكة قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله أفري فتحك أو نعمي سقو خشوعا أو قلبي تبصا وإصدول دقايا ذقنه يكاد أن يمس ظهر راحلته من الذلة لله
waxaa rasuulka garhkiisu uu ku dhowaanayay siduu u foorarsaday ee ilaahay ugu khushuucay markuu maka gelayay inuu taabto garhkiisu dhabarka hashii uu saaraa lam yadkhul mutakabira walaa mutajabbira walaa muftakhira waqafa amaamahu rajulu wahuwa yatuuf bilbayt faakhadathu racda wahuwa yadunuhu kamalikin min muluki lard nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hor istaagay iyadoo rasuulku uu dawaafayo ninkaasi rasuulku aada uga haybadaystay ilaa u gariiray wuxuu ka filanaya waxa laga fisho boqorada dhulka ka taliya faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam hawin calayka fainamaa ana ibnu imra'atin kaana ta'kulu alghadiida bimakka arrinka ha isku weynayn buu yidhi isdeji anigu waxaan ahay uun inanay dhashay gabadh maka ku cuni jirtay muqumadda yacni ana basharun miluk bashar adoo kalaa baan ahay iska kaa weynayn maayo muxamedun calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi liahlih yasbiru calayhim wayagudu aطarfa can akhطaa'ihim wayuciinuhum fii umuuri اlbeyt wuxuu ahaa ninka reerkiisa ugu wanaagsan dhibkoodu ku sabri jiray khaladaadkoodu ka indhalaaban jiray maa lam tukhaalif isharc wuxuu ugu kaalmay jiray arrimaha guriga yakhsifu naclah wayakhiitu sawbah kabtiisuu yeelan jiray oo karintiisuu yeelan jiray ya'tiihi asagiiru waalama wata'tiihi alama fata'khudu biyadihi watadhabu bihi xayثu shaaءat ilmo yar baa u iman jira oo dantiisa u kaxaysan jiray wa hada min tawaaducih addoontaa sidaa yeeli jirtay kaana yanhaa can qatli الnisaa'i wالsibyaan wuxuu diidi jiray in la laayo dumarka iyo caruurta kufaarta wa kaana laa yaqtulu الrusul ergana ma dili jirin weligii erge ma dilin wa kaana yafii biاlcahd wuxuu ahaa ballanka uu la gala cid iyo heshiiska uu la galo kufaarta mushrikiinta xataa kuwii asnaamta caabudi jiray mid oofiya ayuu ahaa hada ya cibaad allah shayء min sifaati rasuuli اllah famaada casaahu an yadiirahu shatmu اlkaafiriin wa طacnu اlmulxidiin waa shay yaroo kooban oo ka mida sifaatkii rasuulka ee xagga dhaqanka maaha kuwii xagga abuurka hadduu nebi maxamed sidaa ahaa iyo si ka badan maxay ka dhibaysaa baad u malaynaysaan durista ay durayaan iyo cayda ay caayayaan kufaarta iyo mulxidiinta aan allah iyo rasuulkiisa toona garanahayn ayuha almuslimuuna cibaad allah arrinta labaad haؤulaaءi alkufaar yashtumuuna mudamama wanabiyuna laysa mudamam wainamaa huwa muxamed waxay caayayaan qof aan nebigii ahayn calayhi الsalaatu wasalaam oo aan suuradiisii iyo sifadiisii toona lahayn iyagoo isleh nebi maxamed baad caayaysaan wa hada min cajaa'ibi qudrati اllahi wa xikmatih alatii daharat fi hada اlamr wa fi hadihi اlaxdaaث waa arrin calaamad u ah ilaahay xikmaddiisa iyo awooddiisa oo ilaahay dhacdooyinkan uu ka dhex muujiyey waana arrin tusaale u ah sida ilaahay uu u rumeeyey ballanqaadku siiyey nebigiisa calayhi الsalaatu wasalaam markuu ilaahay yidhi inaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga fillaanay oo kaa difaacayna kuwa kugu jeesjeesaya nebi muxamedow alaa tarawna ya cibaad allah kayfa sarafa allahu can nabiyihi shatma alkaafiriin wa saba almushrikiin qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fima rawahu الbukhaariyu fi صaxiixih min xadiidi abi hurayra
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم مسلمين تبوا الله الله يا رسول ورمي إذا كياب وإذا لياب سيد إلهي قال لي حنايو قريش عيدود ينعد الشودة وحي إلهي waa shaacir dee nebiguna shaacir ma ahayn gabayaa ma ahayn nin gabayaa bay caaye nebi maxamed gabayaa ma ahayn iyagaaba ogaa inaanu weligii gabyin waxay lahaayeen waa sixiroole waa faaliye iyagaana ogaa inaan sixir iyo faaltoona lagu aqoon waxay lahaayeen waa beenaale iyagaana run uga markhaati ka caayay oo yidhi ما جربنا عليك كذبا وحبينا كوما نقول وحي لهاي المذمم حتى عيد مقع عيد بدقيا محمد ما هين وما لهاين محمد با سدا يا سدا يا سداسة وحي لهاي المذمم يعني كده لعيسنا مقع محمد بانا وقورهين مذمم بيعايان نبي محمد مقعيس مذمم ما هين اوحوها محمد يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد وحر رسولك عليه الصلاة والسلام وحي عايرين عضليا مدى مذمم ولبحين مذمم ناني قماها أنيقو وحانا هاي محمد بان أحي هذه امرأة أبي لهب الكافرة أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول مذمما قلينا ودينه أبينا مذمم وان وعروني دينتي سنوان الدين من هو مذمم إلهي با كل يحشي رسولك عيددي وما يورن محمدا قلينا ودينه أبينا ما حيتري مذمما قلينا ودينه أبينا وهذا يا عباد الله نفسه وعينه تحقق في الأحداث دعدوين كان أرنتها لفتها كدح مقتل بل في صدع هؤلاء الكفار من الدنماركيين والفرنسيين والألمانيين وغيرهم ممن جمعهم الكفر والبغضاء والعداء لنبي الله ورسوله ولأمة الإسلام بل عند يصور يا نيجا مسلم كو قرن يا صفات كالرسول كاللغو شاقي قرآنك يكو اللغو شاقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوحك قرآن في كتب السيرة والتاريخ صور كان إليه وحانو كعبرني نبي محمد هل هذه الصور صور للنبي صلى الله عليه وسلم نبي صور هذا ميولها نبي عليه الصلاة والسلام يوها مد عمامد وين أي مضح وقدوا بنتهاي عمامد دا صومركا قنابل بمبوين أي كحريهين مكاسا محمد يستقى بمبوين بس وقاري سوي الله يقول لحيه صومركسان نين بمبوين مضح كسيتي عايا كاسي نبي محمد ماها إلهي بس وقال لحش نين دمر يا عرور يا اللين يا عايا نبي محمد نولي دمر يا عرور مالين بل نهى عن ذلك نهى النبي عن قتل النساء والصبيان رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر وحلال إيه وحي يصور صارين أي نبي قدونا يعني ليكو عايان ما هصور ردي النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بيتاس وزيادة ليس قفك مؤمنك وحي قرر النمديسة يدبني مديسة وإيمان كسي كرر صدو إنا كفيناك المستهزئين أرنت صدحات يا عباد الله إلهي بايري إن شانئك هو الأبتر نبي محمد وككو علادينيا ككو عايا كدالي عينيا إساقا يا خير يا وناق ودن ميدك قوان وبلنقات إلهي سبحانه وتعالى نبي يسوي بلنقاضي ووعده حق إن الله لا يخلف الميعاد
إلهي بلنقادكيسنا وحق فكل من عاداه أو شتمه أو لعنه أو طعن فيه أو كذب وافترى عليه أو بارزه بالعداء والقتال فهو أبتر. mid kastoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caaya ama nacdala ama dura ama been abuur ka sameeya ama ula soo bannaan baxa collaytan iyo dagaal kaasi waa abtar. jinsigu doona aada, midabku doona ha lahada, afku doonaya ha ku hadlayo, wakhtigu doonayana ha noolaado. ilaahay baa ballanqaadkiisa ka dhigay sunna saa'ira في الكون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن سنة الله أن من لم يتمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون رسول الله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه. عادوئنك إلهي لو قبرته وحاكمده كالرسول كإلهي عايا إردبه هدان المسلمين تأودوا هلين إن العقابان إلهي بaa rasuulkiisa uga argoynaya kagana filaanayo ka aamusiinaya. وقال: وكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. mid kastoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam colaadiya caaya nacaybsha u haya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dabar jaraaya. ilaahay baa tirtiraaya isaga iyo raadkiisaba. raad hagaagsani ka hadhi maayo, raad wanaagsani. xumaanunbaa adduunyadan ugu hadhaysa lagu sheego. famaada baqiya liabi lahab fi dunya? raadka abulahab adduunyada kaga hadhay waa maxay? raadka abulahab oo nebi maxamed caayay oo ku yidhi tabban laka alihada jamactana saa'ira alyawm, adduunyada kaga hadhay waa maxay? tabbat yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidihaa xablun min masad. maalin walba waa la akhrinaya fi dunya iyo habeen kaste, ama waa lagu tukanaya, ama muslim qur-aanka akhrinaya ama mid baranaya akhrinaya, ama mid macallin oo dhigaya akhrinaya, ama idaacadba ku socda, ama tiifi. raadkaasaa ka hadhay abulahab. waa tusaale, wuxuu tusaale u yahay qof kasta oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku xadgudba. wa qaala raximahu llah: waqad dakarna ma jarabahu lmuslimuun min tacjiili اlintiqaami min alkufaar ida tacaraduu lisabi rasuuli illah. waxa aanu tajribo ku haynaa buu yidhi oo muslimiintu ay tajribeeyeen inuu ilaahay u soo dedejiyo argoosiga kuwa kufaarta ee nebi maxamed caaya. وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة. dhacdooyin badan ayaanana soo maray. في البخاري nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga u qori jiray ayaa ridoobay, diintii dib uga noqday. faltaxaqa binnasaara, kuwa kiristaanka la yidhaha buu u tegey. intaana kuma gaabsane nebi maxamed buu calayhi salaatu wasalaam dacaayadeey uhi waxaanu dadka u akhriyo qur-aanka ugu sheegayo anaaba u qorqori jiro oo u dhoobdhoobi jiray. ilaahay baa dhabarka ka jebiyey, waa dhintay. markii la is yidhi aasa, dhulkii baa aqbali waayey. intasara alardu linabiy illaahi wa rasuulih. dhulkaa u aargooyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. way aaseen, waxay kuwa bariisteen isagoo qabrigii dul yaalla. markaasay yidhaahdeen war ninkan maxamed iyo asxaabtiisa colaad weynu hayo, iyagaa xalay waxa weeyaan qoday qabrigiisii oo soo saaray. mid kale u qodeen, gaadh bay u sameeyeen, wax walba way yeeleen. qabrigii aqbali waa dhulku dul yaalla. waa tusaale cad sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uga argoynayo nebi maxamed qofka dhibaatay. waqaala sacdiyu raximah llah: ma tadaahara axadu bilistihzaa'i birasuuli illah wabima jaءa bihi ila halakahu llah waqatalahu shara qitla. qof kasta oo rasuula ku jeesjeesa iyo diinta ilaahay u soo dhiibay, ilaahay waa halaagaa, waxaanu ilaahay dilaa dilka ugu daran. qofka taariikhda dib u raacaana arrintaasi tusaalayaal dhaba ayuu helaya.
tusaalayaasheeda waxaa ka mid a ma rawahu الbukhaari wa muslim min xadiiثi cabdillahi bni mascuud qaala kana nabiyu yusallii fi dili اlkacba rasuulku wuxuu ku tukanayay kacbada harhkeeda faqaala abu jahl wanaasu min quraysh wanuxirat jazuur binaxyati maka faarsaluu fajaءuu min salaaha waطaraxuuhu calayh rasuulkaoo ku tukanaya kacbada harhkeedoo sujuudsan oo abu jahl iyo rag kale oo hogaamiyeyaashii kufrigu ay fadhiyaan meesha ayaa waxay yidhaahdeen war geelii reer hebel ee la qalay maka lagu qalay yaa soo qaadaya ilmogeleennadiisi oo dhabara ka saaraya mid baa soo qaada oo nebi maxamed oo sujuudsan dhabara ka saaray fajaءat faatima faalqatu canhu waxaa timi faatima bintu rasuuli illah markaasay rasuula ka tuurtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu habaaray kuwa ah faqaala allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh ilaahu quraysh qabo liabi jahl bni hishaam quraysh oo dhan uma jeedin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jeeday kow abu jahl wa cutba ibni rabiica wa shayba bni rabiica waalwaliid ibni cutba wa ubay bni khalaf wa cuqba ibni abi mucayd halay ku dambeeyeen talo kuwaas markay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabarka ka saareen wasakdaas ayay tamaayalu wahum yadxakuun marba dhinac bay isula dullaameen iyagoo faraxsan oo qosqoslaaya rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ku jeesjeesaaya maxay ku dambeeyeen ibnu mascuud oo xadiidka warnaya inoo sheegay waxay ku dambeeyeen qaala cabdullaahi falaqad ra'aytuhum fii qaliibi badrin qatlaa waxaan arkay buu idhi dhammaantood iyaga oo ku jira goofkii ceelkii goofka ahaa ee beder ku yaallay iyadoo la wada dilay beder baa la waday ragga ah markaasaa markii beder la waday xataa aasna may helin rasuulku wuxuu amray in mid walba lugta la jiido oo ceelkaa lagu rido way ku jeesjeeseen soo maaha nebi maxamed baa bakhtigoodii dul istaagay oo ku yidhi wixii ilaahay ballan qaaday anigu waan arkay ee wixii ilaahay idinkaydii ballan qaaday ma aragteen markaasay saxaabadu yidhi rasuulka ilaahu maxaad kala hadlaysaa dad dhintay miyay ku maqlayaan markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ma tihidin kuwa hadalkayga iyaga uga maqli og macnaa saad ii maqlaysaan bay iyaga laftooduna ay ii maqlayaan waa tusaale qura tusaalayaashu kuwa aynu ka goyon karna ma aha ilaahay baa ka argoosanaya oo cadaabaya adduun iyo aakhiraba ka nebi maxamed dhaleeceeya qaala allahu subxaanahu wa tacaala ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم كوا رسول كدبيا وحي ليه إلهي كحكم عذاب حنوتية وقال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا كوا الله يا الرسول كيسا دبيا إلهي سبحانه وتعالى وأن عدل الدنيا آخرة وحانو إلهي الديارية عذاب دلية hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka colaadiya weli awliyadiisa ka mida ogeysiiyey dagaal xagga ilaahay kaga iman doona maxaad u malaynaysaa ka colaadiya addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay muxamed calayhi salaatu wasalaam aqulu qawlii hada waastaqfiru allah lii walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله أرنت أفراد أفلقات داداس عيبينتا حد قدبك إيا الظلمك كفارتو أيكولك عيا نبي محمد ومن بشائر النصر تلوح في الأفق وعلامة مسلمين توقف بشارين إيسا قول وصو صعدة يا هلاك وصو صعدة هؤلاء الكفار
xadgudubkoodaas iyo dhaleecayntoodaas waxa ay sabab u noqotay una noqonaysaa biidni illaah wakhtigii rasuulkana sabab ay u noqotay an yucaamilahum allahu binaqiidi qasdihim ujeeddada ay ka leeyihiin in ilaahay ka soo horjeedkeeda uu ku abaalmariyo ujeeddadoodu waa maxay haulaai alyahuud waannasaara markay nebi maxamed aflagaadaynayaan ay dacaayadeynayaan waxay arkeen dadkoodii gaar ahaan haulaai nasaara oo afwaajan koox koox u soo gelaya diinta islaamka waddanka faransiiska ee tan u dambaysay hadda ay ka dhacday waa waddanka dadkiisu ay ugu islaamitaan badan yihiin wakhtigan hadda la joogo markaasaa waxa ay dooneen inay nebi maxamed caayaan oo ay dacaayadeeyaan si dadkoodu ay dib ugaga istaagaan diinta islaamka iyo rumaynta rasuulka laakiin taasi cagsiga u dhacaysa waa masaakiin abu jahl baa caayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sabban fadiica cay aad iyo aad u foolxun maxay sabab u noqotay cayda abu jahl uu caayay nebi maxamed waxay sabab u noqotay islaama xamza ibna cabdilmualib inuu islaamay xamza ibna cabdilmualib oo ilaahay subxaana wa tacaala diin alislaam kor uu ugu qaaday dhib badan oo muslimiinta haystayna ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga difaacay taasaa dhacaysa wahaakada mar kasta oo rasuulka ay caayaan waxaa sii bata dadka islaamaya waayo dadkoodu waa unaasun muqramuuna bilqiraa'a waa dad aad iyo aad u jeceloo uga hela wax akhrinta iyo baxdiga iyo baadhitaanka marka la caayo markiiba in badanoo ka mida kuwooda waxgaradka ah iskama qaataan oo ma yidhaahdaan ha waa sidaa la sheegay maxamed bal waxay yidhahdeen bal ninka waxaa laga sheegay waxaasi suxufka iyo jaraa'idka waynu dicaayadda waynu ku naqaanee bal aynu baadhno waxaan inuu jiro deetana waxay akhriyaan taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisii markay taariikhdii rasuulka iyo siiradiisii akhriyaan ma ka helayaan waxa ay sheegeen kuwaas oo ma ku yaallin waxaas abadan kama helayaan bal waxaa wax ka soo horjeeda oo sifaad wanaagsan oo la quuri karin oo qofka maqlaaba uu jeclaanaya ka helayaan markaasay tahay sabab u noqonaysaa in ay islaamaan in badan oo ka midii mar kasta oo dadka muslimiinta ay seexdaan oo gaalada ay moodaan kuwa xigtadooda ah oo ay isu dhow yihiin oo nasteex ay moodaan oo kuwa run u sheegaya ay moodaan mar kastoo gaalada ay aaminaan ilaahay xikmaddiisu waxay keensatay inuu ilaahay muujiyo waxyaabo muslimiinta noocaasee seexday toosiya marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayo in fara badan oo muslimiin ahaa oo rasuulkooda dayacay oo diintooda dayacay ayaa arrinta noocaasi ay toosinaysaa fayasdaaduuna tacdiiman wamaxabatan lirasuuli illah markaasaa waxa u kordhaya weynayn iyo jacayl ay rasuulka u hayaan wa tamasukan bidiinihim iyo inay qabsadaan ay ku sii dhagaan diintu ilaahay ugu soo dhiibay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nacayb qalbigoo ay u qaadaan haulaai alkufaar oo ay ogaadaan inay yihiin cadowgooda dhabta ah mar hadday rasuulkooda ay caayaan oo ay ogaadaan waxaanay u sheegayaan inaanu dhab ahayn xuquuqul insaanka ay ka sheekeynayaan inay been tahay waxaanay yidhaahdaan xiwaaru ladyaan doodaha diimaha dhex mare ay sheegayaan iyo tacaayush silmi nabadgelyo in lagu wada noolaado iyo in dadka la ilaaliyo damiirkooda ee xataa qawaaniintooda ay ku darsadeen inay beentood tahay bay ogaanayaan xaqaa'iq fara badan oo ka daahnayd ayaa daaha iyo daboolkuba uga qaadmaya waxyeele bay islahaayeen miyaana wax inoo tarin markii jaridada ka soo baxda denmark ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadaysay
waxay qaadeen muslimiintu meel kastoo ay joogaan xamla mufiida jiddan olole aad iyo aad waxtar u leh oo natiijooyinka ka dhashay ay ka mid tahay atacriifu binnabiyi alkariim in dadka loo qeexoo la baro oo sifadiisa dhabtaa loo soo bandhigo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu qoro bijamiici luqaat luqad kastoo adduunyada lagaga hadlo haddii aanay taa yeeli lahayn dee taasiba ma dhacdeen tanaa sabab u noqotay waxaad helaysaa maanta mawsuucatu addifaac can rasuuli illah yacnaa qoraallada ay muslimiintu qoreen malaayiin bay gaadheen codadka ay duubeene rasuulka ay ku difaacayaan ama taariikhdii sifadiisa ay kaga sheekeynayaan lama soo koobi karo waxaynu ka faa'iidnay tharwa cilmiya taariikhiya tarjicu ilaa siirati nabiyi sala allahu alay wasalam addifaaci canhu arrin dhaxalgaleena oo taariikh iyo siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la soo bandhigay waxay muslimiintu awood u heleen inay ummadaha kala baraan man huwa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuba muxamed maa siiratuh maa akhlaaquh maa sifaatuh iyo inay ka difaacaan been abuurka laga samaynayo nebi maxamed calayhi afdal salaatu watasliim ruba daarati naafica imise arrin la dhibsanaayo nafciya waxtar leh wuxuu yidhi shaacirkii waqad sadaq ninkii gabayaagaa wuxuu yidhi ida araada allahu nashra fadiilatin tuwiyat ataaxa laha lisaana xasuud ilaahay hadduu doono wanaag la laalaabay oo la qarshay oo dadka aan u muuqan inuu faafiyo dadka uu dhex dhigo wuxuu ilaahay u diyaariyaa uun mid xaasida carabkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fadaaishiisii wuxuu ilaahay u diyaariyey markuu doonay maanta casrigan aynu joogno oo in badanoo muslimiinta ka midi jahli ay kaga sugan yihiin wuxuu diyaariyey carabka kuwaasi xusaada ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam darajadiisii baa kor noqotay iyo mansiladiisii sharaftiisii baa muuqatay dadkii ayaa bartay xaqiiqada uu yahay baa lagu ogaaday ayuha almuslimuuna cibaad allah arrinta shanaad waxay tahay naxnu lmuslimiin maa waajibuna tijaha hadi alaxdaad inagu muslimiinta haddaynu nahay maxay nagala gudboon dhacdooyinkan maxay tahay inaynu ka barano kow kii hurda ee khafladaysnaa ee gaalo isku aaminay ee xataa magaca gaalnimo u quuri waaye lahaa almuslimuun walaakharuun muslimiinta iyo dadka kale ee moodaya gaaladu inay xigtadiisa yihiin ee rumaystay beentooda arrinta noocan waa inay toosiso waayo waxay muujinaysaa nacaybka karaahiyada colaadda ay nebi maxamed u hayaan ma aha arrintu suxuf jaraa'id iyo joornaallo waxay iska qorayaan dowladaha difaacaya denmark markay qortay saxiifadoodu waxa ay nebi maxamed ku dhaleecaynayso dee dowladdu way difaacday wax kale iska daaya ra-iisul wasaarahoodu wuxuu kaga bakhaylay safiiradii muslimiinta ee halkaa joogay inuu la kulmo fariin baanu u soo diro wuxuu yidhi arrintaasi waa arrin xorriyatulqowla ku saabsanoo aniguma tadakhuli karo haddaad dhibsanaysaan qadaaga u taga garsoorka duwal uruba dhammaantoodna waxay iclaamiyeen inay garab taagan yihiin denmark haddii dowladaha muslimiintu tallaabo ay qaadaan oo cunaqabatayn xagga dhaqaalaha iyo waxaasi inta awooddooda ay isdhahaan kusoo raga muqaataca iqtisaadiya hadday isdhahaan sameeya waxyaabaha ay sameeyaan yani hadday idhahaan dhulka islaamka lama keeni karo annagaa garab istaagayna bay yidhahdeen cidina juuqu ma odhan karto marka ayuha almuslim maaha arrintu saxiifad uu qoraayo joornaal uu qoraayo nin oo dadka muslimiinta qaarkood laga dhaadhicin karo waa nin doonaya uun in baasha laga iibsado oo xoogay ay socoto arrinku waa arrin mudabbara wara'ahu duwal wa shucuub biakmaliha dowladaha ka dambeeya iyo shacbiyo dhan waxay noo muujinaysaa cadowgeenna dhabta inay yihiin cadowna cadow wuxuu ka yeelo dadka caqliga liwa yaqaanin qad badat albaqdaau min afwaahim wamaa tukhfii suduuruhum akbar cadhadii baa afkooda ka soo qubatay
ma qof nebi maxamed nacayb aanu hayn baa sidaa u caaya waxa laabaha ay ku qarinayaan baana ka sii weyn bal wuxuu yidhi kii tafatiraha ka ahaa saxiifa denmarkiya iska daa muxamede ilaahay baanu saa uga hadlaynaa buu yidhi haulaai mulxiduun laa yuuminuuna billah walaa birusulihi waxa aad iyo aad wuxuu yidhi iga yaabisay weynaynta iyo qadisaadda muslimiinta muxamed ay u hayaan deetana waxaan doonay inaan taa hoos u dhigo muxamed daaye ilaahay baan saa uga hadlayaa buu yidhi ya subxaana allah ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwa wacaduwakum awliyaa cadowgeenna dhabtaa inay yihiin waxay noo sheegeen inaan runahay waa inaynu ogaano waxay nala gudboon saas oo kale inaynu qaadno xamla difaaciya oo lala difaaco nebi maxamed aynu ku difaacayno waxaana ugu horeeya inaynu iyaga dacwad ku weeraro taa ay ka xun yihiin waa taase ee ka cadhaysiisay oo kuwooda ay nala jooga maanta waa laga haybadaysanaya dadka u shaqaynaya kufaarta badankoodu xataa waddankeenna marka la joogo islaamnimada uguma yeedhayaan wuxuu leeyahy haddaan waxaa soo hadal qaada shaqada in laga eriyaan ka baqanaya ya subxaana allah الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إلهي خسنديهيسا أي بوحة إلهي نواد يقصي هذا مشاهر يركا جران الشقة كائريان إلهي درادي وحكفي عن إلهي بكوكو بالدلائية من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وإن دينت الله يرى إيجا وحكى لنا إنه يرى دين حماء يا أخلاق ضره أي ما دينه وإن لغو قرى الصحف كي جرايدك وحكى لهم كشاكينيا والتلفزيونada ay ka baxdo oo waxyaabaha lagu wada xiriiro maanta ee casriga lagu tabiyo suurada dhabta islaamku uu leeyahay iyo sifaadka dhabta uu lahaa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam markaas ay dib u fariisan doonaan waxayna la gudboon in inagu haddaynu muslimiinta nahay bal nabigeena alayhi salatu wasalaam aynu baranno muslimiinta in badan oo kamida maanta haddii rasuulka la weydiiyo ma garanayaan hargeysay ka dhacday tartanadii telefishinada laga qaban jiray in qaarkood la weydiiyey su'aalo fudud oo rasuulka ku saabsan oo ay garan waayeen caruurteena xataa inta loo dhigaa waa rasuulka alayhi salaatu wasalaam nasabkiisa iyo makuu ku dhashay iyo madiinu ku dhintay inahaas sifaadkii rasuulka xagga abuurka ahaa oo qof kastoo maqla uu jeclaanayo soo dabiicu ah bani aadamka iyo sifaadkii rasuulka xagga akhlaaqda iyo dhaqanka ahaa ghalibiyatu awladina la yaarifuun bal kibaruna la yaarifuun ubadkeena badankoodu garan maayeen bal dadkeena waaweyn baan garanahay wadra nabigu sidoo eka mid baa oonay nabigan ku riyooday oo sidoo eka nabiga markaad ku riyooto nin gaaban oo madaxiis wada cirra yahay buu ahaa hadduu sifada rasuulka garanayo wuu iska aamuslaa nabi maxamed baan ku riyooday maba yidhaahdeenba ilaa kaas maxamed ma ahe nabi maxamed sifaadkiisa aynu baranno ceeb bay nagu tahay inaynu u sharixi kari weyno kuwa kufaarta ah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa iyo maxaasinta iyo wanaagyada islaamku uu leeyahay iyo fadaaishiisa dadku marka ay maqlaan ay ku jeclaanayaan oo qofka muslimka ahi markay su'aalaha weydiiyaan uu yiraahdo bal nin sheekh baan soo weydiinaya isuk waa cilmi ay waajib tahay dadka muslimiinta inay bartaan nabi maxamed waxaynu ugu nusraynaynaa carada aynu ka qaadno colaadinta la colaadinaya cayda la caaya waa inaynu ugu kalifto inaynu jeclaanaynu weynayno raadkeeduna waa inuu noqdo inaynu noqono diinta ilaahay u soo dhiibay barashadeeda inaynu noqono oo ku dhaqankeeda inaynu noqono oo isaga aynu ku dayano halka in badan oo dhalinyarteena kamid maanta ay ku dayanayaan kuwa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam caay ee aflagaadeynay oo nabi maxamed sharcigi ilaahay u soo dhiibay uu yiri wa anihkum baynahum bima anzala allah aynu ku xukunno nafaheena guryaheena goobaha aynu ka talino mid walba taladiisa iyo awoodiisu inta ay gaadhsiisan tahay markaas aynu dhabaha nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam u nusrayn laakiin diintii lagu soo dajiyay garan maayo ku dhaqmi maayo naftayda ku maarayn maayo ku xukumi maayo cidaan u taliyana ku xukumi maayo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waan jecelahay haddana marka la caayano waan ka xumaanaya ka reerkayga caaya waan iskala saaxiibaya oo waan la fadhiisanaya oo waan la cunaya la cabaya oo waan la qoslaya
oo ina markuu doonayo waa la doonaya oo maalintuu dhinto waan ku tukanaya xabaalaha muslimiintan ku aasaya fahadihi cibaad allahi mutanaaqidaat arrimahaas waxaan isqabanahayn وفي الأخير ما كوا بدع يا خرافاتك يا وحن دينتك كميد هين ومدى الإسلام كل إحنا شرعي كفارتو أي دقالها كبحنيان أي كقبصنيان حفلدها أي دقنيان يقوله نبي محمد بان وينيننا أمان شرفنا أمان احترامنا لماذا لا يتكلمون في مثل هذه المقامات هذا يكذبت نبي محمد إنه يتشعلين وينينيان وكو حفلدها قبصنيا كفارتو أي لعقتك بحنيان يا سبحان الله كيف يغتر بهذا مسلم سيسور تقالوا طاي إنه كفاري مسلمين سيصحة الدين تودي وقبصنايا والنبي قود يشرف يو وينين يسيش صح الشريعة وافقصن إنه خرج كبحيان سيسور تقالوا طاي الكفار يدرسون الأمور ويبحثون عنها ويتعمقون فيها waxay caan ku inay rimaayeen daraasad ku sameeyaan wax kasto ay og yihiin diinta islaamka inaanu kamid ahayn ee lidii uu ku yahay oo uu ka soo horjeedo ayay taageeraan ay faafiyaan manay qarsan waxay sheegeen macaahid badan oo Mareykanka ku taalo 40 ka badan daraasad ay soo saareen oo 400 oo page ka kooban waxay ku qoreen waa in la taageero الطرق الصوفية durbaanada waa in loo badiyo وحضرات الغل عكسيه ودب لو نوليو قبورها لو ديسو ولا دي رجال حبالها لو دواف ويوا تقدير وا تشيدين يا فوررين المسلمين تي لفوررين هاي في مثل هذه المقامات يتميز الصادق من الكاذب ميلها سو كلا كرنتا اي كتاي ككله او كلا بخيا وليست النائحه الثكلى كنائحه المستاجره غبدا قبلن اويسا لمد ماها تلا سوكريستي سيده هرب لو يري حكمه عربيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد